gabadh yahay ama hooyo yahay si salaadaadu ay noqoto mid dhammaystiran oo kaamil ah oo ilaahay agtiisa idanka rabbi lagu aqbalo arrimahan ama khaladaadka noocan iska ilaali kuwaasoo gabdho badan ama dumar badan ay ku dhacaan. haddii aad doonaysid salaadaadu inay kuu noqoto mid saxiixa oo caafimaad qabta inta aada salaada xiran waxaad fiirisaa timahaada xafid oo astur. haddii ay soo jeedjeedaan ama soo baxsan yihiin ogow salaadaada far baa ku godani. intaada salaada xiran dhinac kasta iska fiiri. qofku markuu meel xataa macrika iyo dagaal u socdo ama xaafad u socdo ama xaflad u socdo waa istirtiraa oo waa isfirfiiriyaa oo wuu isnadiifiyaa. ilaahay markaad hor istaagaysidna intaada xiran salaada dhinac kasta iska fiiri, maxaa kaa khaldan maxaa kuu saxan si aad u ogaatid. timuhu waa muhiim, salaada dhexdeeda waa cawro. gabdhaha qaarkood gees ayuu ka wada soo jeejeeda xagga wejiga iyo dhabanka iyo ayay salaada iska xiranayaan, taasna waa khalad. iska ilaali dharka ciriiriga ah gabadh markaad tukanaysid ee kugu dhegan qaarka hore ama qaarka dambe, fanaanad hadday noqotaa ama goonna hadday noqotaba waxaa kugu dhegan iska ilaali. sidoo kale surweelka keliya labis ahaan aad u qaadanaysid ee jirkaada kala xirxiraya salaad ha ku tukan, iska ilaali kaasna. sidoo kale lugahaada hoose dhinaca gumadda ama kubka loo yaqaan inay muuqadaan lama ogola salaada dhexdeeda. markaad dharka soo gadanaysid ilaa qof muslimadaa tahay salaad baa kula xiriirtee dharka dheerdheer soo gado. dharkaada salaada waa inuu dhar dhaardheer yahay. markaad sujuudaysid aysa gumadda iyo kubka iyo waxa la midkaa aysan muuqan. taasi waa muhiim inaynu ku baraarugno walaalayaal. jasaakum allahu khayran.